السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هاتها أسقناتو ربي جينا إنا أبوري إنا صادري معلم كينا حبيب كينا نقص جاي إنا نقرنو والنبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم وسوى ناكسن قلبيادنا مؤمنين تاعه وبري معانك الدين إسلامك جارهان توكل كلا صارت اللوين إلهي سبحانه وتعالى محايل اللوين وحيري ومن يتق الله يجعل له مخرجا سيدا سدرتت قفكي اللوين سيدا عاد أو ضبها أو غبقها اللوين سبحانه وتعالى وحفرها الباب وسأوجين وحن أرنتها السبب هو هذا ما أنت وحينيك شكينا يا قصة عجيبة وأي سبب واحد ومن يتق الله يجعل له مخرجا وحيري ننكم مدعها فقردها waxaan ku sugnayn dhamaadkii ama gabagabadii bishii barakasnayd ee ramadaanka waxa ayna soo haysay maalmihii ciida ee farxadda lahayd waxaan la fadhiyay xaaskayga ayadoo iga ishtakoonayso xaaladda heerka aan faqrinimo aan ka gaarnay iyo dhibaatooyinka naga haysata faqrinimada wuxuu yiri xaaskaygii waxay igu tiri war hebelow waad og tahay ciida maalmad ayaa ka hartay carruurteena waxay ku ciidaan ma haystaan oo waxay u baahan yihiin sida gayaanku ay u ciidaan ayana ayagana u ciidaan heer ay qalbigayga ay gelisay xaaskaygu inaan ciishoodo oon aniga carruurtayda oon wax u waayo mana garanayo halka aan aado oon wax uga soo raadiyo saa wuxuu yiri waxaan soo qaatay wili gaarigayga ama baabuurkayga si aan suuqa usoo aado saa wuxuu yimid suuqii uu kasoo tegay gaarigii ma aqaano meel aan aado way og tahay xaaskayga wallaahi hal shilin inaan jeebkayga ku jirin xaaskayga hal riyaal inaan ka qarinaynin saa gaarigii ayaan meel iska dhigay oo waxaan u tagay qof aan garanayay waxaan bilaabay inaan u sheego xaaladdeeda iyo dhibaatadeeda iyo dhibka ay haysto saa ninkii inta iga yaabay oo xaaladdeeda la yaabay iyo wuxuu igu yiri walaal hoo 500 riyaal orodoo kac oo carruurtaada ugu iibso saa waxaan yiri intaan farxay oon farxad darteed seen kari waay ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiyey oon u shukriyey saa kolkii aan soo aaday gaarigaygii oon furaha aan ku rogay misna waxaan arkay buu yidhi qof aan garanayay oo dhankayga usoo ordaya oo isalaamayo salaanta kadib wuxuu yidhi walaalow reerkaygii wallaahi intaasoo maalmood waxba maysa cunin dhib xooggan ayaa i haysto ee walaalow ii gargaar ilaahay ha kuu gargaaray subxaanahu wa tacaala saa wuxuu yidhi waan yaabay oo waxaan sameeyay ayaan garan waayay maxaa yeelay anigaaba hadda 500 meel ka soo qaatay waxaan go'aansaday buu yiri inaan siiyo 500 kadibna waxa uu yiri waxaan bilaabay inaan gaarigii furaha ku rogto oon u aadaya dhinaca gurigeyga maxaan xaaskayga u sheegaa maxaan carruurteeda ku qanciyaa waya saa wuxuu yiri intii aan wadada socday ayaa wuxuu yiri ciirka oo daruuro keenay oo dabeelo qabow oo nacaam la keenay saa wuxuu yiri gaariga ayaan istaajiyay waxaa hal mar daaqada iga soo gashay buu yiri 500 oo riyaal buu yiri misna xabadka iga dhagtay buu yiri wuxuu yiri waan yaabay 500 oo riyaal oo dabiil sido ayaa xabadka iga dhigtay yaa allah halkii ayaan gaariga kasoo kala wareejiyay suuqii ayaan usoo laabtay saakalka aan imaaday ayaan wuxuu yiri waan shaki waxaan isdhahay buu yiri soo lagama yaabo lacagtan inay qof bili aadan ay ka soo luntay soo lagama yaabo lacagtan qof agoon inay ka luntay maya ha cunin baan isdhahay buu yiri wuxuu yiri waxaan go'aansaday inaan qaadi ama xaadi aan u tagay baan go'aansaday aan u sheego qisadeydii sidaan lacagta aan ku soo helay saa qofkii qaadiga ahaa wuxuu gartay inuu illa weyne subxaanahu wa tacaala ninkan uu wax la wado markaas arrintiisan cajiib ahayd saa qofkii xaakimka ahaa ayaa ka qaaday 500 markaasuu aaday khasnadiisa wuxuu soo qaaday bashqad ama warqad wuxuu soo dhaxgeliyay 500 oo riyaal wuxuu yiri hadda xalaal ayay ku tahay qaado kadib ninkii markuu warqadii uu furay wuxuu ku dhax arkay 450 riyaal iyo 500 waxay noqonaysaa 5,000 oo riyaal iyo 500 oo riyaal yaa allah sabab maxay ku dhacday sabab bay ku dhacday ilaa sabab ayaa jirtay waa isagoo iimaankiisa aad u fiicnaa waa isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala wakiishay aan ka labaynin 500 ee ninka miskiinka uu siinay asagoo uga baahan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu bedelay 4,500 ilaa 500
ugu bedeli oo wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala u leeyahay waman yattaqi llaaha yajcal lahu maqraja ninkii ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsado si dhabana oga cabsado yaqiinna oga cabsado ilaahay farad buu u furaa albaabana waa u furaa waana u gargaaraa addoonkii miyuuna alla ku fillayn addoonka alla miyuuna ku fillayn waa ku filan yahay alaysa allahu bikaafin cabdah ilaahay subxaanahu watacaala addoonkiisa waa ku filan yahay marka inaad si dhab ah ama si yaqiin ah aada ilaahay subxaanahu watacaala maarata ooga cabsato albaabo badan ayuu kuu furayaa waa qiso aada iyo aada cajiib u ah oo wallaahi qiso dhab ah weeyaan oo cajiib ah marka haddii alla subxaanahu watacaala aad tala saarto tawakaltu cala allahi wakafaa billaahi wakiila ilaahay waa ku kaafinayaa ilaahay waa ku tala haddaad isu dhiibato oo tala saarato ilaahay subxaanahu watacaala waa ku gargaarayaa marka midaasoo kale ha lagu taagnaado ilaahay subxaanahu watacaala hana hala adeeco marka aayaddaas waxay ka mid tahay waman yattaqi llaaha yajcal lahu maqraja ilaahay subxaanahu watacaala ninka isku dhiiba oo tala saarto ilaahay waa u gargaarayaa waa walaalkii shaakir oo ina leh insha allahu tacaala qisooyinkan qiso ka badan baa iniisoo tabin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala sii sheergara walaalkiiw gaarsii walaalka waa khayrka sideedaba waxaa waaye waa lala degdegaa ilaahay subxaanahu watacaala ku gargaare u gargaar walaalkaaga dhibaataysan gaarsii maarata khayrka ah diiniyankan war diinta waa wax nasteexa ah hal kelimadna ha noqotee haddaad taqaano walaalkaaga gaarsii marka waa khayr wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala ha ku gargaare u gargaar walaalkaaga oo gaarsii inuuna garanaynin baa dhici karto taqillaha taqiga ilaahay looga cabsanayo ilaahay subxaanahu watacaala baa mahadda iskale waa walaalahaygiiow waa ina salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh